annagu waxaan u aragnaa haddaan maamulkii nahay beelahaas waa walaalaheen dadkoodu waa dadkeennii degaanku waa degaankeennii dhaqan iyo mataqaanaa iyo waxqaybsi iyo isqancin iyo haddii alla ku roon yahay wax walbo dhan baa isku leenna haddeertaanan meel ku wada jirnaa oo meel ku wada nool annagu beelahaas maamulkaas la dhisay qaybtooday ku leeyihiin xuquuqdooday ku leeyihiin inta beelaha yimid ku leeyihiin in la eg bay ku leeyihiin innaba kama yara walaalaheen waa ugu yeeraynaa booskoodii banaana inay soo buuxiyaan shaqada meesha looga baneeyay inay soo galaan hawsha inay ka qayb qaataan waa ugu yeeraynaa kana xaajismayna inaan ugu yeerno haddayna diidana waa ku celinaynaa waxaan wadaynaa ilaa ay mataqaanaa booskoodii ay soo fariistaan oo ay soo buuxiyaan waa wadaynaa haddii ilaah yidhaahdo caynkaasa kula dhaqmayna horta adeer arrintaasu waxaan aniga igu muuqataa horta Soomaaliya dagaal baa ka dhacay dagaal civil war baa ka dhacay 1991 ka dhacay dhibaato dhacday waa la kala haajiray waa la islaayay waa la xumeeyay waa la kala qax kala qaxi nin walba jilaa u gartay waa taga dhibaato waxay noqotay soo noqotay sida uu soo iman lahaa la soo laaban lahaa dadkii kala tagay inuu soo laabto oo maamul iyo dawlad dhisto dhibaatay noqotay ima sharcaantaas la isu imaan waayay oo la kala maqnaa ummaddu kala maqnayd waxaa ka dhashay wax fara badan oo hadda tirinaysay qablayaal dagaal hogaamiye kooxeed problem baa ka dhashay marka la isu imaan waayay waxay tahay marka kooxaha kan diimeed oo ayaguna gadaal ka yimid oo kooxaha diimeed ah waxa waay waxay ka dhasheen maamulkii qablayaasha ka dhasheen wax bay dhaleen intaasoo dhan isu geed waxaa weeye markii dagaalkii koobaad dhacay dadkii inay isu yimaadaan ay wax wada samaystaan shacbi kalsooni baa kala qabiil baa la noqday qabiil baa mataqaan loo kala qaybsamay kalsoonida ama confidence inta la isugu imaado waxa lagu dhisan lahaa waxay noqotay waxa lagu hela dhisada reer hebel baa hogaamiye ka reer hebel baa madaxweyne ka reer hebel baa taliye ka waxaa waaye siba la isu aaminaa la waaye 20 sano oo baladu socotay sanadkii u horeeyay la isleeyahay moogi intii kale waxa la isugu soo noqon waayay wala isaamin waayay soo la isaamin waayay qabluhu marka nin ku qabsaday xoog dalka oo qori ku qabsaday qorna ku haysto maamul goboleedku waxa loo arkay oo Soomaalidu u arkay annaga ma akri ma naqdo wada ba arkay in ay tahay maslaxad gobolkaas isku aamini karo dadka jooga gobolka la ku jooga ay aamini karaan in meesha hadhow qabiil isugu iman lahaa gobol isugu iman waxba ka iman kara laakiin maamul goboleedku kala gogoy dalka ma uma aragnaa inuu kala gogoynay tahay kala tag uma aragno waxaan u aragnaa in ay tahay sidii la isu aamini lahaa oo maamul loo wada dhisan lahaa la wada aaminsan yahay inay ku imaan karto in mataqaana gobol la isu xalliyo oo gobolku asagoo isu xalliyo asagoo nabadda soo sugo dadka soo dejiyo mataqaana asagoo is aamino kadibna gobolada kale meesha isu yimaadaan wixiisa uu la yimaado asagoo wixiisa xisaabtanayo marka anugu ma arko qorshaheennana maaha qorshaha hiiraan state maaha kala gogoyn waa ku bilaabay hadalkayga iyo kala tegid iyo kala fogaansho midna maaha qorshuhu waa sidaa wey
أردنا مايو مركز تران دولة كوبلجار الصومالي دولة بعضهم سواء ضرر ويرتي مركز إنت أنا كشوان بينافتي دولة كوبلجار كمان قوسطة مركز دولة كوبلجار هو شرع بيكون سنت قانون على اعتراف سنة يكون سنت شرعية دولة كمان هو اعتراف سنت دولة شرعية بديل كرت دولة هيكون سنت هاي دستور وحيلات فيدرال oo 2004 kii lagu sameeyay magaalada Nairobi oo dad taqaana sharciyan loo saaray dastuurkaasna faqaraadkiisa waxa ku cusub oo kamid ah maamul goboleedyo in la sameeyo dawladuna ay federaal tahay dawladdu markii sharcigaas la sameeyay ee waxay aqoonsatay maamul goboleedyo la sameeyo adama waxay diidaysaa dawladdu shakhsina ma ama shakhsi ma ogolaanaysa dawladdu shakhsina ma diidayso ee dawladdu waxa weeye waxay dastuurka iyo sharciga ay ku saxa iyo golanaysa way ka soo jeedana waa diinaysa sharciga diinaysa maamul goboleedka Hiiraan State in la sameeyo iyo kuwa daba soo socdaba dawladda federaalku kama qabto waa ka soo jeedo sababta dawladda federaalku ayada waxay ku dhisan tahayba oo ay bata ku taagan tahayba in wadanku maamul goboleedyo la sameeyo maamul goboleedna ay dawladdu magaca federaalka lagu bixiyo waasas ina federaalka marka anigu dawladda kumeelgaarka ah oo TFG-da shahaadooyinka maamul goboleedyada horey u bixisay horey u diyaarisay go'aan bay ku qaadatay muxuu ahaa go'aankii lagu sameeyay federaalka asaas ahaa in mataqaana ay maamul goboleedkan ogolaanaysa kana ka soo horjeesanay arrimaha ku jirta ma maaynaya ma laakiin waxaad weydiin kartaa annaga ku sheegi karaa si dawladda loo dhisay dawlad goboleedka loo dhisay wax xiriir oo dawladda la yeelatay ma jiraan taas way weydiin kartaa sayla tahay annaga ka jawaabi karaa waan gaana su'aasha hadda idin weydiiye annaga ka jawaabay su'aasha waa jiraan mataqaana waa jiraan xiriir yar oo wali sameeyay waa jiraan sida mataqaana safaaradda dawladda kumeelgaarka halka joogta iyo niman mas'uuliin oo ama xildhibaanada wasiiro halkan jooga xiriir waa yeelanay waa isaragnay waa ismaqalnay wax mataqaana objection ah ama ka soo horjeed ana kuma aanan mataqaana kalama aan kulmin marka arintu waa caynkaas weeye su'aal joogto waa soo mudane inta badan maamulada gobolada xaakamsan wax kamid ah maamul goboleedka Puntland oo qaab ahaan raacsan dawladda kumeelgaarka iyo Somaliland oo gooni u barso sida ay hore u sheegteen marka maamulkaana ma la oran karaa deegaan walba maamulada ka jira dawladaha ay xiriir la leeyihiin maamulkaaga inay wataan qaar ka mid ah dawladaha dani arrimaha Soomaaliya بالله أعوذ بالله maamulka waxaa sameeyay dadweynaha Hiiraan cidoo soo jirto dadka reer Hiiraan baa wataadeen maamulkan waxaa sameeyay oo mataqaana abruuf gareeyay oo shaqada qabtay oo si qaban doona ayagoo kaligood oo ka madax banaan faragelin dibad ka madax banaan dadweynaha reer Hiiraan waxa weeye dawlad kale iyo cid kale oo xiriir alla leenahay ilaa hadda ma jiraan waxaan ololnahay ilaa hadda ma jiraan laakiin maamulkan waxaa sameystay dadka degan Hiiraan baa sameystay waxa uu ka shaqeynayana waa danaha dadka reer Hiiraan waxa uu ka shaqeynayana antaas horta adeer muxuu ahaa xogaa waa su'aasha waa horaan u soo maray marka maadaama dagaal ka timid waa ku celinaya dhibaato soo jirto waxa waaye maamul goboleedku waxaan soo sheegay maalintii ummadda reer Hiiraan ku heshiisay maamul goboleedka in la dhiso la sameeyo maalin fog ma ahayn 10kii bisha aan soo dhaafnay ahayd waa 4 beri 5 beri ka hor bay ahayd markii la sameeyey maamul goboleedku marka dad buu leeyahay dad baa taageera dad baa mataqaana uu ka dhisan yahay dadkaas waa dadka reer Hiiraan Nairobi ma wada joogaan Hiiraan ay u joogaan waxa dadka maamul goboleedka mataqaana dhistay maamul goboleedka ku heshiiyey gobolka Hiiraan oo dhan bay joogaan dibadda ay joogaan Nairobi isla walba bay joogaan